بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan salaamo marka hore ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo ummadda muslimkaaba meel ay joogaan. waxaan leeyahay kullu caam antum bikhair. taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. waa maalin farxadeed, waa maalin ciida. Ilaaha ku mahadsan subhanahu wa ta'ala bisha Ramadaan noogu soo dhameeyay khayr iyo maxaan ku iraahdaa fadli kuwa la xureeyay Allah nagu daro, kuwa naxariista Ilaahay Allah nagu daro, kuwa loo dambi dhaaf Allah nagu daro. ummadana Allah uga dhigo sanad qabow oo horumar iyo amni iyo barwaaqo leh. ummadda Soomaaliyeedna qulubteeda Allah mideeyo, waxa uu wanaagsan qalbigooda Allah ku mideeyo. intaas markaan ka gudbo runtii waxa la soo maray bil barakaysan saan sheegnayba, waa huba dad badan aad ay uga faa'iideysteen. laakiin waxa la rabaa ciidamada in la joogteeyo. bisha Ramadaan waxa loogu talagalay qofka muslimka inuu zaad ka qaato si sanadkoo dhan oo u haysto awoodaas nuuraaniga oo barakaysan oo bisha Ramadaan oo helayo. marka insha Allah inaan la joojin alla u dhawaashadii iyo khayrkii dadka masaakiinta ana loo kaalmeeyo oo gacan la siiyo. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay dadka ku caawiya dadka u baahan caawinta iyo aad u jecel yahay. marka ummaduna waxay ku hormartaa inay isgarab istaagto dadka u baahan kaalmada. marka qof walba ka fikir meesha qofka walaalka uu joogo iyo duruufta haysata dad joogi lahayd maxaa jeclaan lahayd in lagu sameeyo. marka dadka xoolaha haystay ilaahay oo nicmada siiyay amaanay ku tahay. marka dadka muslimiinta ah ee u baahan inay ku sadaqaystaan. intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo arinta ciida. waxaan rabaa inaan u gudbo arinta COVID-19. cudurkan waa cudur safmar ah oo adduunka oo dhan soo maray. Soomaaliyana waxay kamid tahay meelaha ku aafoobay. dadaalka in la laabo gaar ahaan waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin in aad loo xoojiyo oo ay tahay in la ilaaliyo mar walba kala fogaashada, in aan meelaha ciriiriga oo dadka faraha badan ay joogaan oo baahi aan loo qabin haddana inaan la tagin, salaanta in la joojiyo gacanta ah, gacmaha mar walba in la dhaqo, in maxaan ku iraahdaa dadkii qofkii isku dareema inuu cudurkaas qabo inuu aad u dadaalo oo uusan dhexgelin dadka kale walow familka ba ha noqdaano. cudurkan wuxuu la mid yahay faafida xaggeeda ama faafida xaggiisa wuxuu kala mid yahay faafida xaggeeda wuxuu kala mid yahay cudurkan la yiraahdo shuban biyoodka. dhamaanteen ba Allah naga badbaadiyo. nabiga subhanahu wa ta'ala wuxuu amray qofkii balad xanuunkaas oo ka jira joogo meeshiis ha joogo, qofkii banaankiisa baladkaas jooganayo gelin. taas macnaheedu waxa waaye al-wiqaayatu khayrun min al-ilaaj. qofku inuu ka digtoonaado waxyaabaha khatarta ku ah. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nafaray inaana naftaan khatar ku ridin. wala tulqu bi aydiikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. يعني waxaad ogtahay inaad u dhimanaysid inaad sameeysid lama ogola. maxaa yeelay naftaan waa amaano. ilaahay subhanahu wa ta'ala siinta oo ku siiyay ihsaan oo kugu sameeyay, wanaag oo kugu sameeyay. marka maadaama ilaahay wanaag kugu sameeyay naftu waa qaaliya dhaqaalay. marka hal la dadaalo kala fogaashada aad lagu dadaalo, hal lagu dadaalo gacmaha in la dhaqo mar walba, hal la iska ilaaliyo meel kasta oo gacmaha lagu taabto, salaantana hal la joojiyo gacanta. Soomaalidu inta badan inay gacanta isku salaamaan aad u jecel yihiin. runtii xilliyadan oo kale waa laga haboon yahay dadku marka ay socdaanna inay meel kasta iyo darbi kasta oo aysan cogsanin waa fiicanta hadaad qabto iyo hadaadan qabinba. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado cudurkan, dadka muslimiinta ka qaado, adduunka dhan ka qaado. intii dhimatana Allah naxariisto, inta hadda oo haayana Allah caafiyo. ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa mar walba wayna la jirtaa. maxaa yeelay hadda institutionada oo caafimaadka sidii u baaba'san yihiin iyo sida hadda looga kabanayo isma laha. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala arintaas ugu mahad celinayna. qodobka ugu dambeeya dhaqaatiirta Soomaalida aqoonta u leh ama aqoonta caafimaad ee durugsan leh inay dadaal dheeraad sameeyaan oo ay cudurkan sidii loola tacaali lahaay ama wacyigelin ha noqoto ama wax ka qabasho ha noqoto inay mataqaana ku dadaalaan. sidaas oo kale waxaan la soconaa qalab fara badan oo dawlado kala duwan ay keeneen ama kuwa ay soo wadaan ay jiraan. qalabkaas waxaa muuqata inaan sidii loogu talagalay loo isticmaalin
waxaa muuqata qaarkood inay suuqa laga helay sida warbixintan ugula soo gaarsiiyay arrimahaas ma fiicna amaanada sidii loo keenay in loo gutaa la rabaa in la abuuro isbitaallo gaar u ah kaliya in lala tacaalo maxaan ku idhaahdaa COVID-19 oo aan la isku dhex dirin dadkii wax u soo barta dalkan inay maalin walba ka fikiraan dhaqaalo aniga waxaan islaha waa ceeb marka waxaa la rabaa in ay xilligan oo kale howlaha kale joojiyaan aysan dhaqaale ka fikirin ay u istaagaan ummadda in la badbaadiyo dadka xoolaha haysta ee caawi kara dadka in banaanka laga soo gurmado annagana aan iska fidhanana arrin sax ma aha marka dadka xoolaha haysta ayaguna inay dadaalaan wixii ay qaybaha ay qaadan karaan ama diyaarintii gurihii isbitaallada laga dhigi lahaa ama xataa dhul haddii la diyaariyo waxaa laga dhisi karaa isbitaallo gaara oo dadka lagu xanaaneeyo waxaan la soconaa isbitaalka Martiini in dad badan xanaano xumo ugu dhinteen conditionkiisu aad u liito marka inaan mas'uuliyad is saarnaa loo baahan yahay aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.